إنا لله وإنا إليه راجعون. أفري طبعاً بشان أنكو قد جرنا أي هاد كدي مركي gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay lagu qarxiyay isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho waxaana xilligaasi halkaasi ku geeriyooday dad aad u fara badan oo iyagu halkaasi ku ganacsanaya iyo kuwa maraya wadada tan iyo xilligaasi ayaa waxa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ee caalamka ka joogta waxa ay wadeen baroor diiq ay u sameynayaan dadka halkaasi lagu dhameeyay saxafiyiinta iyo fanaaniinta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta munaasabad kooban oo baroor diiq ah isugu yimid magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle si ay iyana dhankooda ula qaybsadaan murugta guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah fanaaniinta iyo saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta gobolka Shabeellaha Dhexe waxa goobtan ku sugan saxaafadii ka howlgalaysay gobolka Shabeellada Dhexe iyo fanaaniintii gobolka Shabeellada Dhexe guud ahaan waxaan leenahay dhammaanteen annagoo isku duuban inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qabiil dhimay baan lahaa qaran baa la helaan lahaa qabiil dhimay baan lahaa qalalaasihii iyo dhibkii rafaadkii qaawanaa ka qubaysta ayaan lahaa walle maba ii qornayn maanta qarax iyo rasaas shacbiga loo qaybiyaa إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan leeyahay horta Soomaaliya ay hadal badan haan buuxsho inaan maalin kasta ka tacsiyeeyno waxyaabo aan mar kasta soo aragnay oo hooyadeen lagu dilay oo aabaheen lagu dilay oo walaalkeen lagu dilay oo walaasheen lagu dilay oo hooyada uur kale lagu dilayo oo walaalka maxaan ku yiraahdaa wax baranayo lagu dilayo nama anfacaysaan leenahay anagoo gabdhaha diyaar u inaan qoryaha qaadano oo wariyaal ah oo qofkii muujiyo inuu wax qabto qoorta ka goynayo anagoo shacab ah oo hadana gabdhaha dumar ah waxaan leenahay diyaar waa inaan qoriga qaadano oo maxaan ku yiraahdaa aan cadowga jibino ninkii wax garanayo ma ahan shabaab iyo qofka wax qarxinayo in maaragtay tacsi iyo waxaas mana anfacayso waxaan leeyahay gacanta aan ka hadalno hadii aan damiir leenahay hadii kalena waa inaan iska daynaa hadalka oo qof kasto dhaawacmiyo qof kasto dhibaatooduba aan iska soo duugnaa oo hadalka badan aan iska daynaa intaas oo soo gudbiyay dhammaan waxaan u tacsiyeenayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan ehelada ay ka geeriyoodeen dadkii Soomaaliyeed sida waxashinimada ah loogu qarxiyay kilomitir 5 oo xilligaas ku guda jiray howl maalmeedkooda iyagoo waxba halaynin waxaan leeyahay samir Allah naga siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Hirshabeelle qaasatan caasimadda Jowhar in maanta aan baroor diiqdaas aan sameeyna wixii kari karno oo karaan ah oo karaankayna ah amba wax dheef ama dhiig shubid inaan garabkayna ka qaadano bilaahi tawfiiq waxaan marka koobaad u tacsiyeenayaa ummadii walaalaha ahayd ee Soomaaliyeed ee ku leeatay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan meesha la yiraahdo Soobe waxaan leeyahay intii dhimatay ilaahay jannada firdawsaha ka waraabiyo intii noolna ilaahay azza wa jalla ha u dhaabo ha u caafimaad ha siiyo ha dhaawac bogsiyo inta kadib Soomaali baa leh qof kasta oo dareen ku jiro oo ay Soomaalinimo ku jirto waxaan leeyahay shacabka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe anagoo ku hadlaya magaca ururada bulshada rayidka ah cid alla cidii awoodi karta tankiid wax alla wixii awoodi karaan oo la gaaraan waxaan aad iyo aad ugu xunnahay qaraxii ka dhacay Soobe oo ku laatay inta soo tira oo maanta islaam ah waxaan aad u cambaareynaa cidii ka dambeysay ayaan aad u cambaareynaa waxaan leeyahay inta dhimatay naxariistii firdawsa jannadii firdawsa ilaahay ha siiyo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inta dhaawacna dhaawacooda dhaawac bogsiyo ilaahay ugu dhigo aad ugu xunnahay dhacdadii shalaka ee maalin dhaweeyta ka dhacday isgoyska Soobe waa arin aad iyo aad looga murugoodo waxaan halkaas ku geeriyooday arday ka soo qalan jabiyay jaamacad arday jaamacada dhiganayo ganacsato hanti badan ku baabaaday taas ma ahan cadaalad ma aha Soomaali weyn meel walba joogto waxaan ka codsan lahaa inay gacanta isqabsadaan maanta waxa la joogaa xilligan gacmaha isqabsan lahayn oo aan cadawga iska tiirin lahayn maanta hadda gees istaagno aan dhahno waa cabsanaynaa oo waxba qabanin wax arkeenaan ka leexano
tan way nagu sii soconaysaa ilaahi raajicuun maanta waxaan halkan iskugu nimid inaan baroordiiqan u sameeyno walaalihii ku waxyeeloobay qaraxii 14ka bishan aynu ku jirno ee Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho waxaan leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed gacmo isqabsada hadda ma jirto in la kala qabqabsamo misna qabiil waxyaabo aan loo baahnayn maamul goboleedyada in lagu mashquulo waxaan leeyahay gacmo isqabsada halkaan isugu nimid haddaanu nahay bahdii warfidiyeenka ku dhaqnaa Shabeellaha Dhexe iyo fanaaniintiiba inaynu ka tacsiyadeyno muujinana sida aan markaasi uga qiireynayno shacabkii kulle aaday isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho waxaan leenahay inta dhimatay Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anigoo ku hadlayo magaca saxafiyiinta Hirshabeelle iyo fanaaniinta ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan tacsiye tiiraanay aan dirayaa eheladii qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhamaaday hotel wadada Soobe waxaan halkan tacsiye tiiraanley ugu diraa dhammaan ehladii iyo qaraabadii ku geeriyoodeen qaraxii maalmihii la soo dhaafo ka dhacay isgooska Soobe aadan ugu xunnahay aadan ugu tiiraanyoonayna waa arin aad iyo aad loogu xumaado maamul goboleedyada dalka ka jiro shalay iyo wixii ka horeeyay maalintii ay dhacday ilaa iyo abtuna waxa ka jira baroordiiq gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar caasimadu waa Hirshabeelle wax baroordiiq ma aysan ka dhicin sidaas darteedna waxaan isku soo xilqaanay anagoo ah wariyaasha ka howlgala gobolka Shabeellada Dhexe iyo fanaaniinta in qaar kamid ah ee bulshada in aan u baroordiiqno walaalahani ku dhintay maadaama maamulka uusan xusin dadkaasi ay dhintay ayna yihiin muhiimada koowaad in la siiyo aadan ugu xunnahay in haddaan nahay saxaafadda gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan idin leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ma hadli karo wallahi dhibaatadii ka dhacday isgooska Soobe waa arin xanuun badan Soomaali walbana meel waliba ay daafaha caalamka ay ka joogto waxaan leeyahay aan isku gargaarno in maanta aan isku baahanahay in aan soo qaadano qalabkeena aan iska celino cadawga in dhameynayo bulshada Soomaaliyeed 14kii bishan ayaa waxa ay ahayd maalin madow waxaana 14kii bishan la xasuuqay dad Soomaaliyeed oo barimageeda ah oo aad u fara badan Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV Jowhar